iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha Bitaale gudoomiyaha Dhakamaqal gudoomiyaha Bandar Qaalib iyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan maanta iskugu timid bandarseed iyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan galabta iskugu timid dadka deegaanka oo meel walba ka yimid dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam walaalayaal waa xaqiiq weeye waxa meeshan maanta ka jira waa wax maanta runtii dadka hore u muuqda waa arrin naxariis ilaahay marka hore u baahan ilaahay ma naxee waa naxariistaa ilaahay dhibka dadkaan haysta inuu uga naxariisto oo naxariista ilaahay marka hore ilaahay siiyo sida maanta lagu baahi beeli karaa waa naxariista alla weeye ilaahu naxariistaada maanta dadkaan si waa u jeedaa dhibaatadooda meel walba iskaga yimaadeen intaa yar oo ilaahay maanta iskugu keenay dad 50,000 oo qof ka badan oo ceelka ay cabahayaan ceelkaas hadda halka idinkaga muuqda uu yahay biyaha ceelka ku jira biyaha aad arkaysaan uu yahay wax maanta cid kastaba ay ka naxariisato weeye waa wax ay ka naxariistaan maamulka galmudug oo wasiirku uu maanta nagala joogo waxaan leenahay wasiir Qaydare xoogan oo runtii aan waxba lala harin waayo dad inta tiro leeg oo aan biyo haysano baaba'aya wax maanta ii sheeg halkan la fiirsado maaha waa wixii dawladda maanta meeshaan soo dhooban lahayd galmudug waa wixii federaalka loogu qeyldaansan lahaa waa wixii dhammaan hay'adaha samafalka oo maanta dalka ka shaqeynaya ama galmudug ka shaqeynaya inay halkan yimaadaan xoog la saari lahaa waa wixii dadka muxsiniinta ah oo Soomaaliyeed oo adduunka gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan inay maanta arinta Qaydare ka jirta oo dadkaas ilaahay iskugu keenay in loo soo gargaaro cid walba ay gacan ka geysato waxa ugu weyn oo maanta muhiimka ah waxa weeye in la helo in biyo la helo weeye maanta dadka halkan jooga booyado cid ku waraabin karta iyo cid biyo ku siin karta lama arko dabcan haddii si sax loo fakaro 5 maalmood 6 maalmood meeshan biyo looga soo saari kara laba rig baa la keeni karaa 3 baa la keeni karaa ummadda intaan tiro la eg biyo ku filan waa la abuuri karaa waxaan qabaa dhawaaqaani inuu dadka wax garanaya iyo maamulada intaba inuu dhaqaajiyo meeshan xaalad adag baa ka jirta marka gurmad bay u baahan tahay dadkaan ha loo soo gurmado aan kulligay ka wada qayb qaadano dadkaan inay biyo helaan degdeg ah wasiirkuna ha hogaamiyo maantay